بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مبارك دمان وحوي أمة الصوماليات قارهان وحوي محاكرة دادكو دقن مقالة بوساسو iyo waxaweye maxaa kula dadku ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ummadda Soomaaliyeed halka waxaan ku soo gudbin doonaa baaq kooban oo aan u dirayo waxaweye maxaa kula guddiga dhexdhexaadinta waxaweye labada dhinac isku haya magaalada Boosaaso maxaa ku raday maamulka Puntland waxaan leenahay culimada iyo salaadiinta iyo waxgaradka ku hawlan inay dhexdhexaadiyaan waxa way dadka walaalaha waxaan leenahay waa wax wanaagsan dhexdhexaadintu waa in maxaa ku raday as-sulhu khayr sulhu waxa way waa khayr weeye waxawey maxaa ku raad waxaan ana aad iyo aad ilaahay idinka baryayaa inaad ku guulaysataan oo waliba sulux wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed deeqa inaad waxawey kas meesha aad gaadhaan laakiin waxaan rabaa inaad idinku kabo oo idinku daro waxawey fariin kolley aniga wixii caqligayga ka guuxaya waxaan idin leeyahay oo aan idinka sugaynaa walaalayaal sida aad ogtihiin dalka Soomaaliyeed waxa la degay dulmi waxa la degay oo waxa way ummadda Soomaaliyeed heerka halka ay taalo dhigay waa dulmi waxa way dulmigaasina waxa way maxaa ku leedahay cid kasta oo Soomaaliyeena waxbay ku leedahay culimadu waxbay ku leedahay salaadiintu waxbay ku leeyihiin waxgaradku waxbay ku leeyihiin maamulku maxaa ku leedahay bulshadu waxbay ku leedahay saldhiga iyo meesha uu fadhiyaana maxaa ku leedahay dulmigu uu fadhiyaana waa maamulada way halka waxa way maxaa ku raad saldhiga dulmigu meesha uu ka socdo ummaddu ay ka dhaqaaqi laadahay ummadda Soomaaliyeed ay ka baabaaday waa dadka maamulada u nasab sheegta waxa weeye madaxda isku sheega waxa weeye madaxda gobolada waxa weeye wixii ina soo maray 30 sano maxaa ku raad aynu soo dhaafnay waxay ahaayeen madax ma ahayn laakiin waxay ahaayeen dad u adeegaya شيطان شياطين الجن والإنس waxay dad u shaqeynaya dad ummadda Soomaaliyeed culays ku ah dad ummadda Soomaaliyeed dhibaatadooda ka shaqeynaya dad ummadda Soomaaliyeed waxa way maxaa ku raday halaagooda iyo baaba'ooda iyo maxaa ku raday dhimashadooda iyo dhaawacooda maxaa ku naaxay sidaa darteed waxaan leeyahay maanta waxay joogtaa taladu waxay ku wajahan tahay magaalada Boosaaso waxaan ilaahay ka baryayaa marka ugu horeysa wanaag iyo khayr baan ka baryayaa laakiin waxaan idin sheegayaa dhibaatada meesha taala laba shay weey dhibaatada meesha taala waa laba shay mid waxa weeye waa cadowga imaaraadka ee dalka ku soo duulay cadowga imaaraadka haddaad doonaysaan walaalayaal aad sulux iyo wanaag aad meesha ka rabtaan cadowga imaaraadka waa inaad ka saartaan oo aad tiraahdaan dhammaantiin ba idinkoo isku duuban waxa weeye cadowga imaaraadku waa inuu naga baxa waa inuu dalka nooga taga waayo dawladna lama rabo oo waxa weeye nabadna lama rabo oo dhaqaalena lama rabo oo sharafna lama rabo laakiin waxa weeye maxaa ku leedahay waa cadow ku soo duulay ummadda Soomaaliyeed sidaa darteed guddiga suluxa magaalada Boosaaso ee dhexdhexaadinaya labada maamul waxaan ka doonaynaa inay ku dhawaaqaan oo maamulka jira ay hadda ay ku qasbaan in imaaraadka laga saaro waxa weeye gobolka bari iyo guud ahaan Puntland inta waxaan leeyahay waxa weeye maxaa kale waa arrinka imaaraadka qusay way waxa la isku haystaa waxa asal u ah waa imaaraadka ayaa asal u ah waxa weeye maxaa kale wax badan oo ka maxaa kuladay waxa hadda taagan wax ka weyna way soo socdaan imaaraadku wuxuu doonayaa dadkan inuu jifa isugu diro in dadkani ay isku baaba'aan waxa Yaman ka socda ayuu imaaraadku ka wadaa Soomaaliya sidaa darteed culimada
iyo waxa weeye waa maxaa kula salaadiinta iyo waxgaradkiina ku jira meeshaas walaalayaalow ku dhiirada haddii aad u kacdeen inaad dadka dhexdhexaadisaan walaalayaalow xaq dadka ku kala xukuma oo cidda gardaran qabta oo meesha dhibaatadu ay ka soo baxayso meesha dhibaatadu ay ka imanayso waa inaad dhibaatada ka hortagtaan dhibaatadu maaha dadka magaalada dhibaatadu maaha waxa weeye maxaa ku raday magaranaysa maxaa ku meel kale kama iman dhibaatadu waa maamulka iyo imaaraadka weeye oo wada socda maamulka laftiisa imaaraadka waxaan rabaa inaad ugu baaqdaan marka ugu horreysa inaad maamulka u sheegtaan oo aad meel uga soo wada jeensataan oo aad ku tiraahdaan imaaraadku hana daayo oo hanaga baxo idinkoo reer boosaaso ah idinkoo waxgaradkii puntland culimo iyo wasalaadiin iyo maxaa ku dhadayay magaranaysa waxgaradba idinkoo ah waxaa la rabaa inaad xaqa ku dhiirataan waa haddii aad doonaysaan meesha cadaalad iyo maxaa ku dhaday nabadgelyo iyo wanaag inuu ka dhaco qodobka labaad aan leeyahay maamulkan waxa weeye daaquudka waddanku maxaa ku dhaday gobolka waxa weeye maxaa ku dhaday puntland waxay ka tirsan tahay dowladda federaalka maxaa ku dhaday dowladda federaalka Soomaaliyeed ayay qayb ka tahay sidaa darteed walaalayaal waa inaad xaqa u sheegtaan dani iyo cidda la socota waa inaad xaqa u sheegtaan oo aad ku cadaysaan oo aad tirahdaan dalkani waxa weeye maxaa ku dhaday waxa tahay gobernatore gobol baa tahay waxa weeye sidaa darteed dalku madax buu leeyahay annagu dal baan ka tirsannahay waa inuu u hoggaansamaa oo ay u hoggaansamaan waxa weeye inay dalka Soomaaliyeed madaxda maxaa ku dhaday inay madaxda Soomaaliyeed inay ka taliso waxa weeye maxaa ku dhaday Puntland in maxaa ku dhaday dani uu yahay gudoomiye la dhowr gobol oo isu tagay inuu yahay inaad ka dhaadhicisaan ayaan waxa weeye maxaa ku dhaday iyadana idinka codsanaynaa labada shardi ayaa waxa ku xidhan nabadgelyada iyo xal waara oo laga gaadho dhibaatada waxa weeye ka taagan Puntland dhibaatada guud ahaan Puntland ka taagan tii Garowe ka dhacday iyo tan hadda Boosaaso ka taagan iyo tu kale oo iman doonta haddii aanaydan arrintaa ku tallaabsan walaalayaal waxa weeye maxaa kula aanaydan ku dhiiran ma aha waxa weeye meesha ciidamada laga saaro arrintu kaliya ma aha ciidamada maxaa kula maleeshiyaadka laga saaro kuwa maamulkuna ha joogeen arrintu maaha wixii dhibaatadan keenay ee waxa weeye maxaa ku dhaday saldhig meesha ay dhibaatadan ay ka soo baxayso waa in laga hortago dhibaataduna waxay ka soo baxaysaa waa imaaraadka iyo alladiidka waxa weeye maxaa ku dhaday nimankan alladiidka ah ee waxa weeye maxaa ku dhaday qarandiidka ah ee waxa weeye maxaa ku dhaday dal iyo deegaan toona aan wax u hambaynayn ee ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku ah ee culayska ku ah ee doonaya dalkeena iyo dadkeenaba inay waxa weeye maxaa ku dhahay halaagaan walaalayaal waqti badan ma haysto Cabdullaahi Abshir waan ku soo qabanaya insha Allah adiga laakiin cid kale ma soo qabanayo walaalayaal waxaan idinka codsanayaa waxaan ku soconaa fariintan gudbiya fariintani waxay ku socotaa oo ku celinayaa mar kale dadka waxa weeye culimada ah ee isu taagay arrintan inay dhexdhexaadiyaan salaadiinta gobolka bari joogta kuwa Puntland kuwa Garowe ka tagay ee waxa weeye maxaa kula Boosaaso u tagay inay labada garab ay dhexdhexaadiyaan walaalayaal gaarsiiya fariintan waxa la idinka rabaa inaad Ilaahay uga baqdaan dhexdhexaadinta aad ku baaqdeen nabadgelyada aad ku baaqdeen rabbigii idin abuuray inaad uga baqdaan oo aad waxa weeye xal waara meesha ka keentaan waxa dhibaatadu meesha ay ka soo baxaysana aad waxa weeye maxaa ku dhahday aad daweysaan dhibaatadu waa imaaraadka dhibaatadu waa Siciid Cabdullaahi Dani dhibaatadu waa maamulka Puntland waxa la idinka rabaa odayaal inaad runta sheegtaan haddii kale ogaada fidnada iyo mashaakilka iyo wax allaale wixii dhaca idinka ayaa ka mas'uula awalna idinka ka mas'uulaha waayo idinka ayaa keenay Siciid Dani idinka ayaa sabab u ahaa odayada salaadiinta idinka ayaa sabab u ahaa Siciid Cabdullaahi Dani maamulkan inuu yimaado dadka dhibaatada haysataan wax kale ma aha waa maamul xumo dadku waxay isku dilayaan maamul xumo weeye waa cadaalad darro weeye waa waxa weeye maxaa kula musuq maasuq weeye waa dhulkii oo la gadanayo waa dadkii oo la caburin la cunaqabataynayo dadkii way baktiyayaan hadda shalay maanta waxa weeye Denmark baan joogaa shalayto waxa ila joogay ninka yimi Garowe wuxuu yiri dadku maciishadu waxa weeye dadku way yaaban yihiin dadku waxay cunaan ma haystaan dadka inta dheregtay baa nool meel walbana waa sida Boosaaso waa sida Garowe waa
sida gaalkacyo waa sida qarno waa sida magaalooyinka waxa weeye dalku waa sida sidaa darteed waxaan idinka doonaynaa salaadiinay inaad xalku meesha uu jiro aad ka doontaan culimoy inuu xalku meesha uu jiro aad ka doontaan walaalayaal gaarsiiya fariintan insha allah bismillaahi kariim idinkoo mahadsan gudbiya fariintan walaal kuma soo qaban karo waad mahadsan tahay waa ku soo qaban kari waaye cabdulaahi anfiiri cabdulaahi abshir kamaradaadu way xidhan tahay saaxiib cabdulaahi abshir kamaradaadu way xidhan tahay kamaradaada fur haddii aad rabto inaan ku soo qabto walaalayaal kilibkaa yar baan u soo qabtay waqti badan ma hayo jasaakumullahu khayr sheergareeya oo gaadhsiiya walaalayaal waxaan magaranaysaa ay tahay fariintani waxay ku socotaa culimada fariintani waxay ku socotaa salaadiinta fariintani waxay ku socotaa waxgaradka waxa weeye Puntland ee ka maxaa ku raday ka shaqaynaya xaluhelida dhibaatada ka taagan magaalada Boosaaso iyo magaalooyinka kale ee Puntland iyo guud ahaan Puntland waxaan leenahay arrinta ilaahay uga baqa hal maalin bay ceel joogtaa maanta ayaad gacanta ku haysaan maanta ayaad wax ka qaban kartaan maanta ayaad wax sixi kartaan waxa aad waxa weeye maxaa ku raday waxayna meesha tahay waxa meesha yaala waxa weeye waa imaaraadka cudurka wadanka yaala waa imaaraadka cudurka meesha yaala waa maamul xumo waxa weeye ka timid dhinaca dani weeye waxa weeye walaalayaal marka saxa hadii ha noqonina sidii kuwii waxa weeye maxaa ku raday fircoon waxa weeye odayadii joogay xilligii fircoon ee fircoon wuxuu sheego waxa weeye maxaa ku raday fulinayay ee waxa weeye maxaa ku raday isaga kaliya wax walba uu ahaa ilaaha uu ahaa ha noqonina dani iyo maxaa ku raday ninka la yiraahdo maxaa ku raday dani iyo maamulkiisu waxa weeye shalay bay yimaadeen waa shakhsi Puntland baa ka weyn Soomaaliya ka weyn walaalayaal runta u sheega walaalayaal gacanta ku qabta walaalayaal waxa weeye meeshan dadkani waa inay helaan xaquuqdoodii shacabkan waxa weeye malaayiinka ah ee baaba'ay ee soddonka sano dhibaataysnaa ee maxaa ku raday la magaranaysaa NGO-ga maxaa ku raday loo haysto ee waxa weeye laga dhigtay waxa weeye maxaa ku raday dukaamada laga dhigtay waa inay dadkani ka xoroobaan waa inay dadkani xoroobaan aad iyo aad baad wada mahadsantihiin jasaakumullahu khayr intaa yar baan u soo galay walaalayaal gudbiya fariintan oo gaadhsiiya ninka la yidhaahdo cabdulaahi abshir kamaradaadu way xidhan tahay walaalo bal haddaan fiiriya mar kale cabdulaahi abshir kuma soo qaban karo saaxiib kuma soo qaban karo marka jasaakumullahu khayr sababta kamaradaadu way xidhan tahay saaxiib wacdi wadana adigana waan ku salaamaya aad baan idin wada salaamayaa aad iyo aad baad u wada mahadsantihiin Mrs. King waan ku salaamaya adigana ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna wada xifdiyo jimco wanaagsan baan idin leeyahay dhammaantiinba guul iyo gobonnimo walaalayaal kiliibkan gaadhsiiya waxa weeye maxaa ku raday dadka ay qusayso waa culimada waxa weeye maxaa ku raday gobolka bari waxa weeye culimo waaweyn baa joogta waxa aan igu maqaala ah in 80 culimo ahi ay baaq ka soo saareen oo ay yiraahdeen dadka muslimiinta ahi lama ganacsan karaan lama shaqaysan karaan lama macaamili karaan imaaraadka carabta dadka xilligan maamula imaaraadka waa maxaa ku raday imaaradaha carabta waayo waa cadowga islaamka yaanu noo joogin ya walaalayaal cadowga inaga saara waxa dhibaatada ay waxa weeye maxaa ku raday dadka dalka ku ahi waa cadowgaas waxa weeye imaaraadka weeye yaana idinka hoos bixin cadowga ilaahay ummadda ka badbaadiya haddii aad culimo tihiin haddii aad salaadiin tihiin haddii aad waxgarad tihiin walaalayaal maanta ayaad gacanta ku haysaan talada waxa weeye maxaa ku raday badbaadiya dalka badbaadiya dadka badbaadiya diinta badbaadiya sharafta badbaadiya karaamada waad aad iyo aad baad mahadsantihiin inta ayaa idinka tegaya waxa aan dhegaysanaynaa oo dhegtu ay noo taagnaanaysaa sida aad wax u qabataan waa maalin jimco ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye maxaa kula cibaadada haynaga aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala culayska haynaga qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadan Soomaaliyeed bogeeda burcad haysu mariyo ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna mideeyo kitaabka ilaahay iyo sunnada iyo aqliga wanaagsan ilaahay haynagu mideeyo
ilaahay dowlad waarta oo wanaagsan oo shacabka soomaaliyeed murugtii iyo dhibaatadii soddonka sano waxa weeye boqolaalka sano soo taxnayd ilaahay subxaana wa tacaala mid ka saarta ilaahay ha siiyo oo dalka oo dhan ku baahda oo deegaamada oo dhan gaadha oo maatada u wada gurmata oo maatada daryeesha oo maatada daadahaysa oo maatada waxa weeye xanuunka iyo maxaa ku dhahday يعني maxaa ku dhahay dhibaatooyinka haysta ka daweysa hooyo ma noola oo ubad ma noola oo oday waayeel ma noola oo dhalinyaro ma noola oo cid nooli ma jirto dadkii way baaba'san yihiin xabaal qarkeed bay saaran yihiin walaalayaal waxaan idinka rabnaa dadka inaad badbaadisaan culimooy waxa weeye dadka badbaadiya salaadiinay dadka badbaadiya waxgaradow dadka badbaadiya waxa weeye war dadkan ilaahay uga baqa war dadkan ilaahay uga baqa war waxa weeye maxaa ku dhahay ansur akhaaka dhaaliman oo madluuman war waxa weeye qabta deni war dani qabta war faroole qabta war qabta imaaraadka qabta war cadowga ilaahay ummadda ka qabta war ilaahay subxaana wa tacaala haydin garansiiyo ilaahay haydin garansiiyo in aad waxa weeye doorkiina aad qaadataan oo aanad waxa weeye maxaa ku dhahday ilaahay dartii aad dadkan iyo dalkan u badbaadisaan ummadda soomaaliyeedna guud ahaan aad isu doontaan puntlandna aad waxa weeye sidaa ku walaalaysaan waxa weeye wajasaakumullahu khayr wa axsana allahu ilayk wa sala allahu calayh wacala alihi wasaxbi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh